Hailan hoyoy, haedarin hoyoy, hanana fudin hoyoy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا له نوجو جري يوتيوب كيجا دوادا إن الله سلامنا ما شاء الله وتيم كي قوليو قبلنيمو بريها ولا كلام مقنع مشغول أدويو صح أنا كلا قرصدي أبايا مرتي أوجوتا نهار وشيء هيك ما شاء الله حدنا ما شاء الله عوض وحنجونا قولي ولا شيء ورسن شيخ ما شاء الله فردوس سنواتنا أنا ويكنا ما شاء الله وحن لا هي عاود برنامج كي نوصل عليه حقوق الوالدين ما شاء الله أيام كهلنا إن شاء الله دولها إذنه كسر فاطمة كاسن كفر يا ريسنا دولها إذنه ما شاء الله تبارك الله وحي إلهي دقا جرانسيو هدي الرب الرالي كان نقضي برنامج كان وحو كبحا جنال كعشلدن وبرنامج جوجته إن حقوق الوالدين إن كفا إذا سوارتك انتو نوليهاي وصدمانين تمام adduunka intuu joogo waalidka hadda ka faa'iidaysatid khayr iyo barakiyo nuur baad helaysaa ajir buu ilaahay ku siinayaa xasanaad buu ilaahay ku siinayaa nimcad ka helaysaa ducadii waalidka oo dhanna runtii waad qaadanaysaa waalidka waa jannada adduunka waa jannada ifka ilaahay usoo bixiyey waa adduunka ilaahay keenay ee lagaaga baahan yahay inaad u baarinimo samaysid si aad janno ku gashid baari adduunka ugu noqo waalidka jannad ku galaysaa runtii waxaan leeyahay barnaamijkan waa barnaamij aad u culus qofka markuu dhageysto waxa loo baahan inuu ka faa'iideysto baarinimada waalidka loo faro maxay tahay waxaad arkaysaa dad waalidkood ku qaylinaya waa waxyaalaha ugu badan oo aan arko oo aan la yaabo oo aan dhaho maxay tahay sababtaas maxaa keena maaragtay in badan waxaa arkaysaa hooyo gurigeedii joogto gabadheedii la nool ama wiilkeedii la nool oo gurigaas daryeel ku haysanay waxaad arkaysaa hooyo caruurtii looga tegay lagu rafaadsaday lagu silicsaday aan waxba dhihi karin waayo guriga ka baxayna day ka baqaysaa ma hadli karto adoo marka adduunka taagan markaad waalidka uu kugu agsilco maxaad adigu faa'iide waxaa faa'iido bas ka yar waxa faa'iido ma leh aakhirana maad faa'iidin adduunna maad faa'iidin maanta marka adduunka intaad joogto oo aad nooshahay waalidka ka faa'iideyso waalidka wax u qabo waalidka u baarinimo samee waalidka caasi ha ku noqonin caasigu waa caaq qofka caasiga ah waa qof caaqa qofka waalidku ku afceliyo waxyaaba adduunka soo degdega kugu helay cuqubooyinka kugu soo degdegay kamid tahay markaad waalidka ku afcelisid adu maxaa tahay xawayaan baa tahay runtii ma tihid qof nool oo nafi ku jirto oo damiir xitaa dhiiggiisi leh oo jirkiisi leh oo damqanaya xitaa ma tihid marka waxaa wanaagsan waalidka adduunka intaad joogto u baarinimo samee in badan diinteenna way kusoo noqnoqotaa وقتي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أدونك يا إيوه حق طبعا مع الويل أمه هذا ثم أمي سدح مرة سدح جرب الوعلم سبت الوعلم هذا حقوق ذا أي لا ذا هاي هو يد عد مجدي كرتو عندنا مجدي كرتو تاسع بينهن سيبك قبضة وحي أركتي حنون وحي أركتي فول waxay aragtay walac waxay aragtay inay umushay cunugi waxay aragtay inay soo dhafartay waxay aragtay cunugi inuu habeenkii ku soo kaco waxay soo aragtay intay saa u fararsato ayadii cunugu ka sii dhacayo inay saa dhacdo xasuusnow haddaba hooyadaas ay kugu soo ahayd inaad ka dhacdid bay xitaa ilaalinaysa adiga saad maanta kaad dhasho u ilaalinaysid waayo laba indhood baad ku haysataa hurdaa ku haysa tabcaan baa tahay ilmo uma soo jeedi kartid mana hayn kartid awooddaadii waxaan ahayn waay laakiin nafta jacaylka ay qabto ilmaha jacaylka loo qabo nafta way jeclaysanaysaa inaad cunuga uu kaa dhicin waad dhowraysaa waad ilaalinaysaa dhulkii waad ka ilaalinaysaa maanta maxaa lagaa rabaa marka maanta adaa lagaa rabaa inaad dhowrtid adaa lagaa rabaa inaad waalidka gacan qabatid adaa lagaa rabaa waalidka inaad u baarinimo samaysid
adigaa lagaa rabaa waalidka inaad garab istaagtid ka faa'iidaysa intuu waalidkaa nool yahay maxaan ku rahdaa u baarinimo samey intuu waalidkaa nool yahay u adeeg intuu waalidkaa nool yahay u qadaam intuu waalidkaa nool yahay ka ajar guro intuu waalidkaa nool yahay waalidka intuu nool yahay afceliskama fiicno celiskama fiicno runtii waxaan ku wareejin doonaa Firdawsa Ismaaciil Janala joogto maanta cashaladna janalkeedaan ka hadlaynaa aniga oo sayruq shaqa ama warsan shaqa saahadba ii taqaaniin insha Allah biidnillaahi alkariim tiimkii aad taqaaniin ee quruxda badnaa guul iyo gobonimo waxa weeye hankoodii weli waa socdaa una sareeyaa hiigsigoodana meel dheer bay gaari rabaan insha Allah biidnillaahi alkariim waxay noqon doonaan gabdhaha ka soo baxay reer Toronto oo youtuber ah isku maxaan ku rahdaa isku xiran oo kor u socdo tiim qurux badan oo magacoodu yahay guul iyo gobonimo meel laga heli karo ma runtii sidaas iyo si wanaagsan ayaa ku socod si qurux badan baad uga hadashay horta adaaba aad u dhamaysay khayr badan Allah ku siiyo sayruq sheekh aad waxyaabo badan baad ka hadashay waalidku horta waxa weeyaan mataqaanaa waa waxa dhan oo haddaan waalidka haduuna jiri lahayn aduma jirteen ilaahayna xaqiisa wuxuu ku xujsiiyey xaqa waalidka leeyahay wabilwaalidayni ixsaana ilaahay yani shirkiga marka laga tago waa waalidka ku xiga laga galo ilaahay dambigiisa marka waa ilaahay waalidku isku xujsiiyey waalidku ciyaar ma ahan xaqooda maba gudi kartid waa kii la yidhi ninbaa intuu waalidkii soo xambaaro intaasoo sano usoo xambaarsanaa xajku keenay dhabarka ku keenay marka xajku dhabarka ku keenay markaasuu yidhi xaqii ma guday markaas waxaa la yidhi xambaar yar oo saa uga fakatay xataa ma dhamo marka waalidkaaga sida ay kuusoo barbaariyeen kuugu soo dadaaleen markay weynaadaan waa waqtigoodi iyagana markaas waa inaad u naxariisatid waa inaad wax aliyaale wax ay jecel yihiin aada u samaysaa because waxa weeyaan waa mustaqbalkaaga waa futurekaaga adna berisaanaad noqoni yacni qof kasta adduunkan uu ka tegi uunu ka gaboobi qofna weligii dhalinyar ma ahaanay adna maalintaada imaan kuwaad dhashay haddaadan kuwa dhalinna aakharaa lagaaga jari ama adduunka haddaadan dhalin doodan ilmaba dhalinba silic iyo darxuma kuu dambayn haddii kalood waxaan ku aad waalidka ka ducaysatid dadka aabbihi hooyo kuu noqonay waad aragteen waalidka marka kuusoo duceeyo aabbihi hooyo ilaaha kaaga dhigo marka lagu dhaho ducadaasa waxaan ku diirimaadkeeda iyo niyadda aad ku dhisanaysid markaa waalid kulaaleel ciyaar ma ahan wax lagu kaftamo ma ahan wax lagu dheela ma ahan awlaadaada daadi laakiin waalidka ma aragta xambaar awlaadaada laguma odhanayo maxaad ugu baari samayn weydi laakiin waalidka aakharo iyo adduun baad ku cadaabnaan haddaad waalidka aad waxaan ku aad u wanaagsanaan weydo marka waalidka layska ilaaliyo la-aantood maad dhalateen la-aantood maad korteen la-aantood waxa maad noqoteen farxad maadan heli lahayn marka walaalayaal waalidka layska ilaaliyo hooyooyinka layska ilaaliyo hooyooyinka lagu shaqaysanayo ha layska ilaaliyo oo hooyada hadday kula joogto oo ilaahayba kugu soo cimri isku kiinsimay cagaha u duug oo rafaadka kula soo martay ka maydh adig xasuusnow rafaadka kula soo martay kuusoo jeeda dhabankeeda qurux badan oo dhalinyar ah ay wax kasta intay kasoo jeedsatay adi ay ku hayn jirtay adna wax kasta uga jeedso oo u duug meel kasta gee meel kastoo jeceshahay wax kasta oo ku qurux badan u qabo oo sii ducad heli adduunyo iyo aakhiraba wad hormari marka insha Allah saasaan isku ognahay hooyo ducaysan noqo hooyoy adna hooyaad tahay waalidkan waxaan ku dadaal wiilashana sidoo kale walaa wiilasha aad baan ugu duceeyaa qaarkood intay reerahooda ka tagaan waalidkood la dega ma aragta aad baan ugu duceeyaa gabdhaha sidoo kale aan waalidka u dadaalo oo intaa cilaan u marinayo oo maasha Allah aad yaabaysidna aad baan ugu duceeyaa marka dad badan oo fiican baa jira inta xun Ilaahay soo hadeeyo waanadana Allah uga dhigo fiican Allah way wax u tarta Allah ka dhigo anagu markasta waxaan jecelnahay wacyigelin iyo wanaag inaan bulshadeena soo jeedino haddana insha Allah walaasha caashanku soo dhaweynaya ku reejinaya masha Allah waa mahadsantiin thank you idinkan aad u mahadsantiin ra'yigiin wanaagsan aad ka gudbiseen meeshan waxaan u socnaa wax kale ma ahan say waalidka qiimaha uu leeyahay inaan ka hadalno kaliya meeshan usoo fariisanaa dadka ay u bartaan
intii garanaysa waaba garanaysa laakiin inta kalena magaciisa waxaan rabnaa in wacyigelin ay u noqoto inay u noqoto waxaan usoo fariisana waa taas marka waxaan leeyahay walaalahay wixii aniyaan dhihi lahaa kule idinka marka horeba dhahdeen anigana waxaan usii dhamaystiraa waxay tahay waalidka qiimihiisa waxaa garanaya dadka waalidkiisa ay dhinteen allahu akbar laakiin qofka waalidka markuu aabana haysanin kaasaa dareemi karo xanuunkiisa waalid markuu meesha ka baxo agoon ciilan baa garan iyo rajo ciilan ayaa garan karo qof kale garan kara malahan because markuu waalidka kula nool yahay adiga waad iska sahlanaysaa laakiin waalidka markuu meesha ka baxo waxaa inuu boos weyn uu isaga kaa haayay ogaanaysaa oo duleel daaqad weyn kaaga soo furantay aad ogaanaysaa qiimuhu leeyahay marka waxaa idin leeyahay walaalahayga hooyo iyo aabbo yaa lagu ciyaarin ciyaarna yaa laga dhigan rasuulkeena allahumma salli sayyidina maxamed aba ka dardaarmay wuxuu dhahay waalidkaada kugu wacliyo special hooyada saddex mar dhahay wax ayaga aad gudi kartid maba ahanba wax kasta ka aababa kii ilaahay kugu simo labadood kii ilaahay kasta dhabarka saaro aad iyo aad qiimaha waalidka dareema taada kale waliba fiiri aan in yar kuugu daro hooyadu ilmaha inta badan ma habaarto laakiin habaarkeedu ma kaco qalbiyan uma habaarayso hooyadu habaarkeeda wali inta badan afkeeda way ka ilaalisaa way ka dhowrtaa intay ka dhowri karto dee hal iyo dhif waa iska macquul ibni aadan bayna nahay iyadaaba horta haddaad xumaysid iyagaaba minalaa qalbigaanaaba kaaga dhiciba laakiin aabaha oo kale Soomaalidu waxay dhahdaa si gooniyaha la isaga dhowro because aabuhu hooyadu way ka xaq badan tahay laakiin aabuhu wuu ka calool adag yahay wuu ka ilkulul yahay waana ka calool adag yahay ogaada isagaana dhididkiisa idin soo siiyay ciyaar iyadu laakiin waa iska masaakiin inay waxba ku gaarsiin baa laga yaabaa waa ku qalbi jecsanaan maantaada uma muuqato laakiin waxaa ugu xun qofka bini'aadanka inkaarta afka lagaa dhahayo tan caloosha ka xun inkaarta markay caloosha ka soo go'do aad waalidka ka naxisid taasaaba ugu xunba midda oo kusoo abaaraysa waa iyada aad iyo aad marka waxaa idin leeyahay walaalahayga intii waalidkooda nool waalidiintooda ha ilaarsadaan qiimaha waalidkan ogaada mar walba ani mar kasta afkaan kala qaado waxaana waalidka waxaan u leeyahay wax kale ma aha anaa labadiiba maanta labada aniga iga maqan yihiin ayagana waxaa ilaahay oga baryaa jannatul firdaws inuu ka waraabiyo intii waalidiintooda dhimatana ilaaha u wada naxariisto ilaahu aamin aniga waalidiintooda hooyaday waa nooshahay laakiin ilaahay badan ha siiyo ilaahay waalidkood dhimatay inta waalidkood nool yahayna sida anigoo kale ilaahu in badan ii daa hooyada iyo aabahay cimri dheer caafimaad la ilaahay siiyo aydan inta islaana ummadana maxay waalidiintooda noosha dhan aan u wada duceynaynaa sax inta waalidiintooda dhimatana ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo qabrigooda waasac allaha uga dhigo marka waxaan idin leeyahay walaalahayga ha sahlanina waalidiintiina gabdhaha yaryar wiilasha yaryar dadka soo kacaayo nolosha hore usii rabo waalidka afka lagu celinayo hala joojiyo dad badan waxaa arkay waalidiintooda afka kusoo taagaya si xun ula hadlayo guriga ka cersanayo war adiga markaa calool xumo waay qaar hadda waxaa jirta hadda magaciisa waalidkiisa si xun ula dhaqmi jiray oo waalidkiisa daayacay maanta xanuuna kusoo bowday xanuunkaas ku imaaday waa waalidka iyadoo dhibaatadaas u geysatay ay hadda qaraacsan tahay ooynaysaa waalidkaada adiga dhibka u geysatay ma aragta dhibka adiga u geysatay si adiga u geysatay ma arkaysa laakiin tan ku haystay ka walbahaar ka qabtaa adigana waxaan ku leeyahay ilaahay caafimaad qayr qaba ha ku soo siiyo laakiin waalidkaada ha daayicin waalidkaada erey xun ha dhihin waalidkaa iska ilaali meesha isha kaaga soo jiidmayso iska ilaali yaa lagu ciyaarin waalidka ani waa kasoo horjeeda horta totalba waalid qofka afka kusoo taga qofkaas hataa ma xisaabsadaa xisaabta iguma jirto ani runtii mar alla marka waalidka qofku inuu caada uu ku yahay aan arko ama af adeeg la soo taagay waa banacbahay wallahi qalbiga ku diidayaaba saaxiib kasta markaan la ahay waalidkiisa markuu afka ku taaga aan arko waa cross garayaa waa iska xiraa isaga because qofkaas waalidkiisaas ula hadlay berin adaa ku dayaa berin muxuu ii taraan wuxuu ii taray ma anaa arkay
gabdha aan saaxiibo la ahay ama dad waalidkood afka ku taagay aniga dhagayga aan ku maqlay indhahayga ku arkay marka adigana ka toobakeen walaashay wiilka walaalkay oo waalidkiisaas afka ku taagay sidoo kale waalidkaada u roonow maanta fursadda aad haysatid ka faa'iidayso haddaa ka faa'iidaysan weysid bari aan maanta ahayn maanta ay kugu imaanaysa ka shalaynayso oo waxba ka qabsan karin aad iyo aad markaan saasay Hailan hoyoy, kaedarin hoyoy, anana fudu